بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي دقالق سو دوادا وولاشين أيوش بنت رشيد وإن مركل سو دوادا جنالك aad naga daawanaysaan waa Ayush bint Rashid. Hadii aad ku cusubtahay subscribe saar oo furo gambaleelka kuna soo biir asxaabtaada. Hadii aad hore noola joogtana markale soo dhawo minikaaga waaye dugaankaaga waaye. saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo mowduuc aad iyo aad u xiiso badan. Mowduucani waa hubaa in uu aad idin xiiso geli doono dhalinyaro badan ay wax ka faa'iidi doonaan. Haddaba waa mowduuca ay dhalinyarada wax ka faa'iidi doonaan. Talo waa mowduuca dhalinyarada ay wax ka faa'iidi doonaan ay maanta Ayush jecleysatay in idin soo gudbiso. Wax kale ma ahan. Waxaan arkay qaar badan oo isweydiinaya dadka sideen ku iloobaa qof aan jeclaa oo iga tagay. Waa su'aal. Sideen ku iloobaa qof aan jeclaa oo iga tagay. Dhab ahaantii aad iyo aad ayay u xanuun badan tahay qof aad jeceshahay in aad ilowdo. Wayna adag tahay. Waxa waaye maalin mugdigeeda wadato xanuun fara badan waa dareemaysaa. Hase ahaatee waxaa la dhahay dhibta laguma waaree waa laga dhamaadaa. Marka walaalayaal maanta waxaan jecleystay mowduucaas inaan idinla wadaago. Waxaa jira asxaab badan oo ah dhibana jacayl. Marka dhibana jacayl oo dhaawacan qalbiga ayaan doonayaa in aan caawiyo, dhaawiciisana aan dhayo, in uu dhibaatadaas ka baxana insha Allah aan jecleystay inaan garab ka qaato aniga. Si kastaba ha ahaatee waxaan isku dayaa in aan inta awoodeyda ah aan idinka hakranin iyo inta aan maanta aniga aaminsanahay in aad uga gudbi doonto marxaladan adag. Dhab ahaantii qodobada aan kuu sheegi doono haddii aad si fiican ugu dhaqaaqdo wallaahi waxaan hubaa in aad qofkaas iloobi doonto maalintay ahaataba. Laakiin qodobadeeda marka hore way ku dhaawacayaan aawato. Aad ayaad u dhibsanaysaa qalbigaagana waxaad moodaa inay wax u dhibayaan balse noloshaada dambe ayay ka taxadarayaan. Haddaba qodobadan idin wada maxay yihiin? Qodobka koowaad waa in aad iska ilowdaa waxyaabihii idin dhex maray adiga iyo qofkaas. Farxad iyo murugo wax walba ay tahay wanaagii uu kuu sameeyay, asxaankii uu kuu sameeyay. Waxaasoo dhan waa inaad ka dhigtaa hal bacaad lagu lisay oo niyadaada wax naxariis aad u gelin qofkaas. Ka dhaadhici maskaxdaada in uu ahaa qofkii kaa tagay qof xun, adigana uu ku siiyo fursad aad iyo aad u qaali ah oo weligeed aan ku soo marin. Tagay in ay wax xun kugu tahay ama adiga ay dhibaato kugu tahay. Maya, adiga dhibaato kuguma ahan. Qofkaas wuxuu ku siiyay fursad qaali ah oo aad ku baran karto qof asaga ka wanaagsan booskiisa iyo boos ka badanba kuu buuxi kara. Hubaal waan hubaa aniga taas. Qofka kaa tagay waxa uu kaala tagay isaga dhibkiisa oo kaliya ee kaalama uu tagin adiga wanaagaaga. Adiga waxaa tahay isla adigii. Qofkaa tahay ayaa tahay. Qofkaan shalay ayaad isbarateen. Maantana waad kala tagteen. Wax problem ah ma lahan in aad qof kala tagtaan. Waa adiga jaanis aad iyo aad u macaan oo qofka ku siiyay. Kana qaada cashar. Mowduuca labaad. Iska tirtir dhammaan xasuusaha aad qofkaas wadaagtaan. Sida haddii aad ka heysay sawiro ama aad isdhaafsateen fariimo ama aad isdhaafsateen dalxiis ama maxay ahayd wax waliba oo xasuus sheegta iska daleed. Dhammaan ciwaanadiisa qofkaas isku day in aad baloog ku qabatid. Waan ogahay marka aad baloogta aadid 5 mar ayay gacantaada aad ka celinaysaa balse adigu waxaa tahay qof geesi ah. Waxba u beerjileecin ku qabo baloog. Lambaradiisa qofkaas daleed. Dhammaan sawirada aad ka heysid qashinka ku dar. Una arag qofka kaa tagay in uu ahaa mar walba qof aad iyo aad inuu kaa taga adiga iyo qaali kuugu ahayd. Waayo anaga waxaana adeejiso maskaxdeena. Wax waliba aan maskaxdeena ka dhaadhicinana way inoo hagaagayaan. Waa wax la hubo taas. Waxaan ku leeyahay dhammaan xasuusaha qofkaas aad ka heyso forgad iska dheh. Mideeda kale haddii ay jirto wado ama meelo qaas ah inta badan qofkaas ku arki jirta ama aad ku xasuusato ama aad ku kulmi jirteenbo. Wadadaas ha isku dayin in aad ka fogaato adigoo ka cararaya xasuusta. Wadadaas waxaa kuu habboon in aad maalin iyo habeen martid. Sababtoo ah
waxay kaa caawinaysaa in ay waddadu kugula mid noqoto waddooyinka kale. Balse haddii aad ka fogaato, maalin maalmaha ka midana ay dan mahuraan ay kaa soo gasho, markii aad waddadaas soo istaagto waxaad dareemi doontaa xanuun aad iyo aad u fara badan. Si aad uga fogaato ama aad iskaga ilaaliso waddadaas, ku dhaqaaq in aad mar walba aad marto si ay waddooyinka kugula mid noqoto. Qodobka 3, ka fogow qofka isku keen yaqaanay ama inta badan kaaga sheekeeya ama qofka hadaladiisa kugu soo qaada. Sababtoo ah mar walba oo hadaladiisa qofkaas lagugu soo qaada, maskaxdaada way laba kacleynaysaa, jaceylkana uu kugu sii jibaarmayaa inta aad sugayso in aad ilowdo. Haddii ay noqoto xitaa aad la kulmayso qofkaas yaqaano, la kulan qofkaas nacabkiisa si uu kugu xaraareeyo mar walbo. Hadduu qofka wanaagsanaa iyo hadduu samaabo, waayo haddii aad dhaho qofkaas maxaa u xaqiraa, qof wanaagsan uu ahaa, qofkaas maxaa saas u yeelaa, noloshaada qofkaas raadka uu qalbigaada ku reebto kama tirmaayo. Marka waxba u naxariisanin qofka nacabkiisa la saaxiib, ha ku sameynin adiga qofka wax xun, balse si aad nafsadaada u nacsii lahayd meelaha laga neceb yahay ama dadka neceb la sheekayso ama dadka xumaantiisa faafiya. Adigu wax xumaan ha ka faafin, laakiin dadka xumaanta ka faafinayo maskaxdaada ku safgarayso, kuna raaxayso qofkaas xumaantiisa oo arag wax wanaagsan. Taas waxay kaa caawinaysaa in aad qofkaas ka sasta asaga dhan, aragtidiisana aad nacdo ama maqalkiisa. Marka aan ku dhahayo nacabkiisa la saaxiib, kama wado qofka xumee ama caqabad ama dhibaato u geyso. Adiga wax dhibaato ah ha u geysanin, wax isaga dhibana ha ku sameynin, waxna ha ka sheegin. Xitaa wixii idin dhex maray, hadduu qof xun xitaa ahaa, xumaanta uu kugu qarsaday xitaa ha ka sheegin. Balse niyadaada leh meesha ay ku dagayso ama aad naceeb kaga qaadi karto qofkaas, ku dadaal sida aad ku nici lahayd falkeeda. Qodobka 4, ka fogow heesaha calaacalka ah. Ha dhegeysan heesaha calaacalka ah, waayo waxa jaceylka ama murugada ama qiiradana galisho waa heesaha jaceylka ama heesaha calaacalka ah sida aad u taqaano. Dhab ahaantii heesaha waxa ay ku geeyaan meel aadan joogin. Waxaad is arkaysaa adigoo dhex maquuranayo badweyn jaceyl oo aad meel aad ugu baxda aadan lahayn. Inkastoo heesaha Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala oo noo baneynin, haddana waxaan jeclaan lahaa in aad ka fogaato heesaha, siiba kuwa calaacalka ah. Even haddii aad dhegeyso kuwa dhiirigelinta ah ama daadiska ah, si aad ugu kabsato wixii ku soo maray iyo dhibaatooyinkii. Haddii aad dhegeysato heese calaacal ah, wixii kugu dhacaa aniga kuma aana dhigin, taladeydana waa aad khilaaftay. Qodobka 5, is-xisaabi inta aan lagu xisaabin. Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala waxa uu kuu abuuray in aad adduunkaaga iyo aakhiradaadaba aad camal wanaagsan ku samaysato. Adduunka kaga tag camal wanaagsan, aakhirana la tag camal wanaagsan. Ha ku mashquulin qof oo waqtigaada ha u dhuminin. Qofka kaa tagay waa uu tagay, balse adiga horta xisaabi in aad tahay qof nool, in aad tahay qof ay dhashay hooyo iyo aabe, kana dhashay famil wanaagsan, walaalo. Mar walba ayaga waqti la qaado markii aad danahaaga muhiimka ah soo dhameysato. Ku mashquul waxyaabaha aad barato adiga. Inta badan juhdi geli meelaha heesaha iyo waxaas juhdiga geli waxyaabaha aad adiga barato. Qodobka 6, wax allaale iyo waxaad qofkaas soo kala marteen, wax walbo xumaan, samaan, wanaag, marnaba horta qofka ha xumeynin. Laakiin qisadaada jacayl waxaad ka soo qaadaa riyo aad hal habeen ku riyootay oo subaxi marka aad soo kacdana aad gogashaada hiiftay. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Sidaas iyo amaano Allah. Waxaan hubaa talooyinkayga 6 talo aan ku siiyay in aad wax badan ka faa'iidi doonto. Waxaana kaa codsanayaa fiidiyogan in aad xaqiisa siiso. Hadday ahaan lahayd comment, hadday ahaan lahayd like iyo share iyo subscribe intaba. Waxaan kaa rabaa in aad fiidiyogan xaqiisa siiso, waayo aad ayuu kuu caawiyay. Lana wadaag dhibana jacayl kasta oo aad taqaano. Waxaana niiga tagayaa sidaas iyo amaano Allah. Ramadaan mubaarak asxaabteyda aan jeclahay. Bye bye.